uu qaato. Haddaba waxaa jiri kara qayb loo yaqaano secondary myoclonus. Maxay tahay secondary myoclonus? Secondary myoclonus wax kala maaha. Waxa weeyaan xanuun jira ayaa sababaya twitcheskan iyo boodboodkan ka jira meel ka mid ah jirkeena. Macnaa muruqu ma xanuunsanayo ma gacantaas ma xanuunsanayso, laakiin xanuun jira ayay sheegaysaa in uu dhibaatadan keenayo. Maxaa ka mid ah waxa loo yaqaano autoimmune diseaseska. Waxaa ugu caansan oo keeni kara waxa loo yaqaano celiac disease. Secondary myoclonus. Secondary myoclonusku waxaa laga yaabaa in uu saameeyo meel jirka ka mid ah, laakiin ay effectiga iyo saameynta ay ku leedahay meel kale. Gaar ahaan tusaale ahaan waxaa ka mid ah autoimmune diseaseska sida xanuunka loo yaqaano celiac diseaseska. Waxaa ka mid ah xanuunka dhiigga iyo chemistry imbalance marka uu dhaco, sida kidneyga iyo liverka hadday dhibaato ku dhacdo oo kale. Waxa loo yaqaano electrolyte imbalance. Waxaa kaloo ka mid ah hadday dhacdo brain lesions, hadday dhibaato ka jirto maskaxda ama jug ku dhacday ama kansar ama dhibaatooyinkaas ama dhiig ku furmay ama waxyaalaha caynkaas hadday jiraan, iyadana sida stroke oo kale waxaa laga yaabaa in ay keento inuu khalkhal ku dhaco meelihii controlkaas ee ay maskaxdu controleysay meel ka mid ah. Waxaa ka mid ah degenerative diseaseska. Degenerative diseasesku imika way nagu soo badanayaan, berigii hore way nagu yaraayeen. Waxaa ka mid ah nooca aynu u naqaano Alzheimerka ama iyo Parkinsonismka iyo dementiada oo isku dhow xanuuno waxna wadaaga waxna ku kala duwan. Kuwaasi oo ah adigu guud ahaan markaynu inagu soo koobno loo eego wax loo yaqaano asaasaqa. Aynu ku soo koobi karno ama inuu nooc asaasaqa ama qofka oo aan maskaxdiisii xasuustii iyo ay ka guurto controlka meelo ka mid ah jirkiisu, kuwaasina qayb ka mid ah way keenaan. Waxaa kaloo keeni karta xanuun loo yaqaano nooc ka mid ah infectionka, xanuun loo yaqaano Lyme disease. Lyme diseaseku waxa inta badan uu ku dhacaa dadka kaymaha iyo meelaha aad u jooga. Waana xanuun keeni kara twitcheska ama secondary myoclonuska qaar ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah herpes simplex viruska isaguna. Waxaa ka mid ah nerve and spinal cord injuries, haddii dhabarka iyo dhibaata ka gaadho meelaha ay ka soo baxayaan dhuumaha waaweyn ee dareenka qaada. Waxaa kaloo ka mid ah haddii aad isticmaasho waxyaalaha loo yaqaano non-medical drugs and substances. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah khamriga oo kale. Haddii qofku badsado iska garanaynaa marka qofka markuu khamriga cabo dee controlkiisa jirka ayaa lumaya. Hadduu dee qaato dawooyinka sida drugska iyaguna amphetamine iyo cocaine iyo wixii la mid ah herointa iyo wixii la mid ah iyo qaar kale oo inhalants oo iyagana xasanka la nuugo ama la buufiyo iyo wax la mid ah. Kuwaasina maxay sameynayaan? Waxay khalkhal ku ridaan nidaamkii balanska maskaxdeena ay jirka ku maamuleysay. Dabadeedna qofkii maxaa ku dhacaya? Arkaysa qofkii oo dheeldheelaya wadooyinka maraya ama dhacdhacayaba oo controlkii jirkiisu ka lumay. Waxay ka mid tahay waxyaalaha iyaguna non-medicalka ee dawooyinka. Waayo qaar ka mid ah kuwan waxaa laga yaabaa in dadka qaar loo qoro, laakiin ay yihiin intii therapeutic oo intii loogu talagalay qofkan bini'aadanka inuu dhaafiyana aan loo ogolayn. Qaar kale oo iyaguna kuwa la qoro ka mid ah ayaa keeni kara sida kuwa antidepressantska iyo blood pressureka, kuwan dhiigkarka loo qaato qaar ka mid ah, iyo antibiotica iyo opioid killerska iyo anestheticska. Kuwaasina qaar ka mid ah waxay keeni karaan in ay dhibaatada yar oo fudud ay ku sameeyaan khalkhal ay ku sameeyaan jirkeena qayb ka mid ah. Waxaa kale oo ka mid ah haddii qofka la sumeeyo ama xayawaano ka mid ah kuwa sunta ay qaniinaan. Kuwaasina waa dhibaato jirta. Imika macdanaha aadka waddankeena ugu soo badanay mercuryga oo kale ayaa ka mid ah. Mercuryguna waa runtii sun aad u adag weeyaan oo la iska ilaaliyo wey. Guud ahaan waxyaalaha secondaryga la yiraahdaa intaasay u badan yihiin. Waxaa kale oo jirta qayb loo yaqaano essential myoclonus oo iyadoo ah
genetic oo la kala dhaxlo familiyaduna ay kala dhaxlaan inteeda badanna aan dhibaato laga soo sheegin ama ayna ahayn mid korto oo si gradual u koraysa dabeedna dhibaato weyn geysanaysa laakiin halkaa lagu xakameeyo ama halkaa ku taagan. Waxaa kale oo jirta haddii hadda baan doonayno inaynu care garayno qofkaasi horta waa inaynu ka qaadno history fiican aynu ogaano qofkan xanuunada imika aynu soo tirinay mid kamid ah ma leeyahay mise ma laha. Marka aynu ogaano inuuna qofkaasi lahayn ama uu leeyahay mid kamid ah ayaa kuwii kale laga saaraya meesha si gaarana loo daweynaya hadday tahay mid secondary ah amaba ay tahay taa hore ayaan kasoo sheekaynay. Waxaa qofka lagula talinaya qofku haddii ay dhibaataasi ku dhacdo jirkiisana uu qaybo kamid ah controlku ka lumo marka laga yimaado xanuunada dee horta xanuun oo dhan dee ilaahay baa qadaray ama waa qadarka ayba kamid tahay khayrihi wa sharri ayaynu aaminsanahay. ilaahayna cidii dhibaato xanuunada aynu soo sheegnay in uun la dhibaatoonaysa waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dulqaado. waxyaalaha lagula talinayo waxaa kamid ah qofka horta kow inuu dee dhakhtar raadsado soo ogaado bal xanuunkan hayaa nooca uu yahay iyo halka uu kasoo yimi iyo sida uu socday iyo wixii oo dhan. laba inuu iskaga fogaado waxyaalaha maandooriyeyaasha wuxuu doono waxa noqdo welibana imika aan anigu aad ugu aanaynayo dhibaato badan oo kamid ah waxyaalaha dareen wadahayaasheena iyo dhibta u geystay maskaxdeena inay kamid tahay baalkan ilaahay nagu saliday ee qaadka dadna ayba imika bilaabeen inay xayeysiiyaan. qofku inuu ilaashado waxyaalaha keeni karaa in uu waxyaalaha dee ka garab dhawaado ama khamriga ama drugska iyo dee ciddii ula saaxiibay wixii oo dhan iska yareeyo. waxaa kamid ah haddii qofku epilepsiga ama xanuunada waaweyn aan sheegnay qaar kamid ah ay ku dhacaan in dawooyinka sida uu dhakhtarku ugu qoray inuu u qaato. waxaa laga yaabaa dawooyinka qaar in lagu qoro sanad 2 sano 3 sano in lagu qoro lagu yiraahdo qaado qaar waxaa laga yaabaa in lagu yiraahdo inaad xataa 1 day miskarayso looma baahna. marka wax weyn mas'uuliyad adag mas'uuliyadana waxa ka soo bixi kara de qofkii go'aan leh. insha Allah ilaahay haynaga dhigo kuwii de caafimaadka ugu wanaagsanaado. waxaynu rajaynaynaa in ilaahay balaayada iyo xanuunka oo dhan inaga ilaaliyo dadkeenana ka ilaaliyo. de halkaa ayaan ku yar gabagabaynaynaa intan qofkii xanuunada aan sheegnay su'aala ka qaba waxaynu rajaynaynaa inuu commentiga noogu reebo ama uu Facebook iyo Instagram-ka iyo